wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya maamulka Soomaaliland ee SLM ayaa ku soo waramaya in wali aan si rasmi ah loo aasin dadkii shacabka ay ku geeriyooday banaabaxyadii muddooyinkii dambe ka dhacay qaybo kamid ah maamulka SLM ee Soomaaliland magaalooyinkooda waxaa jirta in maanta ugu yaraan 100 qof oo kor u dhaafay oo soo gaaray qabuuraha ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa ee maamulka SLM ee Soomaaliland ayaa waxa ay xilligaas soo gaaray aas loo sameeyay 3 qof oo ku geeriyooday dagaaladii iyo sidoo kale mudaradii ka dhacay deegaanada ka tirsan maamulka SLM ee Soomaaliland in shacabku ay weerar ku qaadeen wasiiro ka tirsan Soomaaliland oo soo booqday qabuuraha si halkaas ugu soo duceeyaan dadka shacabka ee ku geeriyooday muddooyinkii dambe mudaradii ka dhacay Soomaaliland tirada ay dadku ku geeriyeen mudaharada ayaa lahaatan si rasmi ah loo shaacin waxaana dadku qaarkood ay sheegayaan isla markaas dhaxmaraya inay dadkaas kor u dhaafayaan 40 qof dadka ku geeriyooday mudaradii muddooyinkii dambe ka dhacay magaalooyin ka tirsan magaalooyinka maamulka SLM ee Soomaaliland ugu horeyso magaalada lagu magacaabo Hargeysa oo Soomaaliland xilligan fadhigeedu ay tahay wasiiro ka tirsan maamulka SLM ee Soomaaliland ayaa saaka waxay booqdeen qabuuraha bari ee ku yaala magaalada Hargeysa ee maamulka SLM ee Soomaaliland waxaana ay halkaasi kala kulmeen shacab godowsan oo xilligaas halka ka dhigayay banaabaxyo si aysan marnaba wasiiro ka tirsan maamulka SLM ee Soomaaliland aysan uga soo qayb galin aaska loo sameeyay madaxweynaha ku geeriyooday banaabaxyada muddooyinkii dambe ka dhacay Soomaaliland waxaa jirta in haatan inay ku jiraan talaagado dad fara badan oo ilaa haatan aan si rasmi ah loo aasin isla markaana hor istaagay madaxweynaha maamulka SLM ee Soomaaliland Muuse Biixi oo sheegay in dadkaasi la amar dama laasin shacabka kala duwan ee ku dhaqan deegaanada maamulka SLM ee Soomaaliland ayaa muddooyinkii dambe banaabaxyo weyn ka waday qaybo kamid ah maamulka SLM ee Soomaaliland waxaana ilaa haatan jirta in dadkaasi kor u dhaafay 40 qof kuna geeriyooday rasaasta ay furayeen ciidamo ka tirsan ciidanka maamulka SLM ee Soomaaliland ay ku fureen shacabka ay ku dhawaad 40 qof ku geeriyoodeen qaybo kamid ah magaalada Hargeysa ee maamulka SLM ee Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa inay wali jiraan banaabaxyo waaweyn oo laga soo jeedo xukuumadda maamulka SLM ee hogaaminaya garwadan ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana ilaa haatan lagu soo waramayaa inay jiraan in shacabku wali ay wadaan banaabaxyada ilaa haatan ay jireen dadka shacabka ah ee la gumaaday ee rasaasta ay ku laayeen maamulka SLM ciidamada tabacsan isla markaana ciidamadaas oo aan diidana banaabaxyada ay dhigayaan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland inta badan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa banaabaxyo ka dhigayay qaybo kamid ah magaalooyinka maamulka SLM ee Soomaaliland waxaana halkaasi khasaare iyo dhibasho iyo dhaawac ka soo gaaray shacabka kala duwan ee ku dhaqan deegaanada maamulka SLM ee Soomaaliland madaxweynaha maamulka SLM ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo baahinta la hadlay ayaa sheegay in aan si rasmi ah mudaharada loo joojiyo isla markaana loo hoggaansamo amarka ka soo baxaya ciidamada maamulka SLM ee Soomaaliland saaka ayaa si rasmi ah wasiiro ka tirsan SLM weerar culus ay ku qaadeen shacab kala duwan oo godowsan ah oo ku sugnaa xabaalaha bari ee magaalada Hargeysa ee maamulka SLM ee Soomaaliland waa caasimada waxaana ay shacabkaasi ay burburiyeen baabuur fara badan ay wateen qaar kamid ah wasiirada maamulka SLM ee Soomaaliland shacabku oo aad u xanaaqsanaa in wasiirada ka soo qayb galaan aaska loo sameeyo qabl xiliintii ku geeriyooday banaabaxyadii muddooyinkii dambe ka dhacay qaybo kamid ah maamulka SLM ee Soomaaliland